Purchase your track. Salaam meel kasta joogtiin daawadayaal kusoo dhawaada showgan waa 252 Gooner Corner aniga oo wax ku saabsan Arsenal ama sporty in general especially Kubada Cagta ka sheekeynayo. Okay, so xagee ka bilaabna maanta waxaan ka bilaabaynaa player of the century ama maxaa la laacibkii boqol sano aad soo gudbin mugtahay the best player in the last 100 years. Okay, so Dubai Global Soccer Awards waxay magacowday Cristiano Ronaldo inuu yahay player of the century ama laacibkii boqolkan sano oo la soo dhaafay. Dad badan ay dhahayeen Ronaldo uma qalmo the best player in the century iyo waxa seeti like marka la fiiriyo Cristiano Ronaldo wuxuu achieve gareeyay wax amazing mugtahay. I know there's always maxaa la Messi iyo Ronaldo again I like marka la is he the best player in the last century? I believe so. Well, because sababtan oo Ronaldo u qalmo oo Messi wax yar ugu fiican yahay in my opinion waxa waaye okay, so Ronaldo first of all wuxuu haystaa 5 Champions League oo win gareeyay mugtahay. Messi na waa 4. Also on top of that Messi national team kiisa weligiis lama win gareynin trophy or major mugtahay. Ronaldo wuxuu la qaaday Portugal Euro ogtahin. So Ronaldo markii la national team wax badan oo kusoo kordhiya Portugal. Haddii la fiiriyo Portugal iyo Argentina teamkeeda on paper Argentina teamkeeda xoog badan. Aguero ku jiro, Higuain, Pastore joogay, waxaa joogay maxaa la Eva Banega, the team maxaa la Ezekiel Lavezzi, Dybala. So Argentina team xoog badan. Market Delafir on paper very attacking weerar fiican haysta. Still unfortunately wili wax ma sameyn mugta Copa Libertadores waxa ka raay Alexis Sanchez wadankiisa Chile waa laga raay final ka penalty shootouts waxay la tahay Messi hatta inuu misgaray penalty laakiin Messi waa again player laacib oo amazing mugta Messi talentkiisa waa wax uu ku dhashay mugta waxa Ilaahay si waxa seeti oo markina wax unbelievable talent like hadii la fiiriyo Ronaldo ma ahayn talenting markii la uu haystay laakiin wuu ka shaqeeyay jirkiisa ma waa ogeed markuu Manchester imaanayay 2001 ama 2002 wuxuu ahaa wiil iska cateesan oo xag proteinka cabin mugtahay. So within 2 years waa aragtay guy maxaa la inta laga yeeshay maxaa la muruq iyo asoo kala go'an top corner goal oo bilaabay. So hadii la fiiriyo Manchester markuu ciyaarayay very high level mugtahay. So Premier League ku ciyaar Premier League waa in my opinion one of the most difficult league oo ugu maxarkina oo ugu xoog badan hadii la fiiriyo adduunka. Every Serie A ahead laakiin playing style ka Premier League waa very difficult maadaama waa wax badan ordaysa waa maaragtay waa xoog markii la dhaho waa unbelievable maxaa la takalyaal waxa lagu galaa oo lugta laga jibinayo aan fahmino maadaama hadii la fiiriyo Spain Barcelona Messi ma joogay tomi 6 iyo tomi 5 asagoo oo age kaas oo Barcelona tagay وكم مفجري the first team على كنا مقطع. So هذه في Premier League يو La Liga in my opinion Premier League are more competitive. La Liga صدقت أما أفر team هاي عليك هلا قراب مقطع. برشلونة Real Madrid Atletico Madrid هذا الصبح مع المهنيتي obviously in the last 5 6 7 years. Villarreal هوسي جوت مرة هري. Valencia maybe sometimes مرة مقطع لكن هذه الفريق ونورمالي بحي هاجرتي سنة دياش كهر ريال مدريد يو برشلونة مقطع كوحياش كلنا مقري كرين هذه الفريق لعب يباور بركي اللي هو buying power وحكسو كذا عندك كان يتهلاص مليون تيم ياش عن أنوا والبيجي جر مقطع any one player هذه أو تيم كان عليها والله صو كذا straight away so balance إنما إيه مقطع ليجا like Premier League في عني balance وهيد تيم يال بدنا أسكر هاي كري وحوق you are not guaranteed إنه صدق بوينت مركز تاهش يعني اسمه so هذا on top of that Ronaldo أوكي مركو تشيلسي أو بينالتي مسجري Champions League راش الوقت فاينل كبعد ما جون تيري أو مسجري مانشستر وير اسمه Champions League سيتي أصلا جيم كاسبين كاسينو جول دلي ماذا حكوا لي the first goal أو حوينكي أو فاينل against Chelsea ريال مدريد Champions League والريال مقطع. بس مركو ريال تجنف وصي وذي جول ألسكا واحد سيتي
for a very high level kabacdina wuxuu tagay Juventus mugta Juventusna still ninkan wuxuu joogaa Sudan iyo something so wuxuu ciyaaray saddex team oo high level wuxuu kusoo bilaabay Sporting Lisbon oo Portugal laga soo gaday maadaama markii oo xataa fiiris baleeriyaasha Manchester ka sheekeynayeen Gary Neville iyo waxaas waxay dhaheen half time oo tagay Sir Alex Ferguson markii game kaasi tii la ciyaarayeen Sporting Lisbon waa friendly ahay Cristiano Ronaldo yar oo xawatay silver boots ama kabaha qalinka oo mercurial la dhahay R9s oo Ronaldo wadi jiray gaaganati geeska chopping dadka dhan ku dhex baxay half time way tagay Gary Neville oo daalan oo sidii markina oo hara sida ay gamal Alex Ferguson gaagan waa inuu soo gudid Allah he's a very good player Rigo Ferdinand ka sheekeynay waxa wiilkan wiil khatar waayo alaabta oo wada caadi ma ahan waa very good player isla markii game ka dhamaaday dadka kor joogay oo tagayeen Sporting Lisbon waxa la gaagan tirarna Cristiano waa soo gadanayna kabacdina ogeed asigii iyo waxa la keenay gaaga kale Nani la isku soo gaday maadaama Nani waxiis fashilmay oo Ronaldo success ka noqday mugtahay laakiin aan ku soo naqano aniga waxay la tahay in Ronaldo uu qalmo maadaama la siiyay the best player in the last century reason ka ku sheegay waa reason oo maxaa la ninkan waa training hard oo sameeyaa he never gives up markasta wuu sameeyaa markasta wuu sameeyaa jirkiisa ka shaqeeyaa waa very very high level wuxuu u dhashay mugta banooniga like wax oo si xoog u shaqeeyay ahead hadana levelkiisa it does not drop every time gaagan wuxuu jiraa soo in afar meelahaas amal still very high level oo sii wada laakiin hadii la fiiriyo baleeriyaal badan jiri oo very amazing ahay waxa jira for example Ronaldinho jiri for example dadkaas ay laakiin Ronaldinho unfortunately qamre iyo waxaas di balaa gashay mugtahay waa iska Brazilian kan waxay kimaada meel oo wadanyaal markina oo iska faqiirsan waxay ku soo koraan markay lacagta helaan waxay laakiin gaaganati wuxuu ku soo koray asiga xataa meel faqiir oo ku soo koray Madeira laakiin he never gives up still waa very very high level like so waxay la tahay maadaama gooliyaashu ali assistigo sameey iyo koobiyaasha wingareey wadankiisa xataa wuxuu la raayay mugtahay European Championship so I think inuu qalmo maadaama saas yahay Messi haduu aadi lahay teamyaal kala Europe for example oo Premier League imaalahay waxa city he has a very good chance like maadaama Barcelona la joogo all the time he was always in the best team mugtahay so of course you're going to win markaas La Liga qof lacag ma haysan everyone was broke so saas ay la tahay maadaama inuu Ronaldo uu qalmo inuu player of the century ama laacibka oo boqolkan sano la siiyo so waa la socdaa waana taageersanaa maadaama la siiyay hadii hore loo sii socdo yaa kaloo la siiyay ha Pep Guardiola Manchester City managerkeeda Pep Guardiola waxa la lahay waa managerka coach of the century award la siiyay hadii la fiiriyo coach style fiican oo keenay meel kastoo tago uu raayay laakiin hadii la coach like for example Alex Ferguson markino حتى manager fiican ahay maadaama oo Alex Ferguson wuxuu fiinahay every year wuxuu keenay new team mugtahay so Manchester always competitive ahead waxa uu joogo Park Ji-sung iyo qatar ka dhigay Nicky Butt iyo qatar ka dhigay Darren Fletcher iyo qof walba oo keenay Louis Saha iyo markasta Manchester waxa la jira season ka maraanaysa laakiin Alex Ferguson markasta he reinvented qof kale cusub oo keenay qof kale cusub hadana baleero wuxuu keenay jiro oo iska medium laakiin oo yaqaano sida loo raaco formation ka ama instruction sida uu raaco mugtahay baleeriyaashiisna wax fiican oo ka keenay jiray so waxay la tahay xataa Alex inuu galay like maadaama Pep Guardiola waxa loo siiyay meel kasta oo taga koob uu karay mugtahay Manchester City koob uu karay Bayern Munich koobiyaal badan horay in Germany Barcelona horay mugtahay so meel kasta oo taga laakiin asigana waxa eeda loo qabaa maybe oo la dhahi karo maybe he's not the best waxa waaye wuxuu tagaa kooxyaasha ugu lacag badan adduunka Manchester City waxa haysto dadka qadar iyo qadar ma lahay Dubai dadkeeda haysta ila tahay so waa ujeedaan dad badana meel kasta oo taga waa meel oo lacag badan tahay mugtahay waxa rabo dhaha baleeri kanad 70 milyan kan 60 milyan waa loo soo gadaa mugtahay ma jooga meel oo lahay hay saaxib 40 milyan lagu siiyay season kanad 40 kanad 10 u gooy baleeriyaal 4 milyan ku soo gad bacdina it's not his style mugtahay so asagna waxa leeyahay maybe mu qalma I'm not sure very laakiin nadii la coach ama formation oo ku fiican yahay so taas it can go anywhere 50-50 ka asaas because coachalka badana jiray that achieved si fiican u ciyaareen laakiin style-kiisa waa style qurux badan indhaha mugtahay tika iyo bas ko ciyaaro hadana maxaa lahay kooxda ama clubka oo maxaa lahay boqolkan sano ugu fiicneed ama club of the century waxa la siiyay Real Madrid
أنا taas ku raacsanahay Real Madrid waxay ahayd team oo markina oo Galacticos markasta high level oo ciyaaraysa. So I think marka loo historygooda iyo la decima xataa markay gaareen win gareeyeen the 10th Champions League. waa team fiican teamkaasiti I know inay lacag badan haystaan wax kaste laakiin sanad kaste they're always challenging meel kasta ay joogaan mogtahay. So saas waaye. So Real Madrid haddii la fiiriyo kooxdeeday maadaama la siiyay the best team in the last 100 years wax fiican haddii la fiiriyo mogtahay. Champions League win gareeyaan regularly, Champions League ku jiraan, La Liga xataa maxaa lahay way xoogsadaan marmar. هذا محل معلومة عليه obviously ستايلكي iyo weli waxay ku jiraan I think transition mogtahay. Baroniga sanadyaal araane sanadyaal waa laga araana mogtahay. So maraa jirtay inay Pep Guardiola markuu joogay iyo Mourinho markuu joogay xataa markaas ay tii Real Madrid inay competition ka high ahead. Laakiin Spanish ka league-ooda waa league waxay iska laciif ah. Laakiin maadaama saas tahay Real Madrid waxaa team oo quality leh waaye, pedigree leeyihiin. Champions League markii loo the best in Europe markasta ku jiraan mogtahay. And they know how to win. Markii la gaaro last 16 markaas ay serious naqanay mogtahay. Hadan gadaal wuxuu joogo Sergio Ramos waa ninkii defenderka in my opinion he's very consistent mogtahay. Red card qaato laakiin waa a guy oo teamkaada u baahan. You need that guy mogtahay. Qof walbo darbeena madaxu ka tuma everyone he doesn't care. Hadan wuxuu joogo maxallahay Ronaldo goal badan oo dhalinayay. هذا إسكو يخبان Vinicius وجوجا. So I think like in new generation أسوب بحويه زيدان هو he's trying to mix مقطع experience إيه وحسيت إسكو mix كرينا. So I hope إنه وشق الساس ساس واي. So هذا فضلا هوسكو سوقر محلها هاي كل أحسن تين player of the year, player of the last 100 years, manager of the last 100 years إيه كوحدة of the last 100 years مقطع. So ريال مدريد Pep Guardiola اللي سي مانجرك بقول كان سنة iyo Ronaldo وراي لاعب بقول كان سنة لصور عارف مقطع. So محاك ولا طهيرة إيجاد هوسك سوقر like comment share فضلا إيه سوقر وحى طهيرة إيجادي I would like to know إنه أجاده. ها ساسا شو نوسي جبنا هذا ومع سنتين مدام first فيديو جانتي أنا جا و 252 Gooner Corner مرة كسودة هذا سيدان إيه مركز صاحب peace. Purchase your tracks.